بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولا إلهي ومهلا سبحانه وتعالى إنه سورة قليي إن عاوى جلسدا آدك أقيمها بدل عن سوي منه. إلهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى إن nolosha intay nooga hadhay acmaashan wanaagsan ee wejigiisa loo qamarayo annaga oo ku jirna inay noo dhamaato insha Allah khaatumadeena inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo mid iyada oo uu raalli ka yahay waxa aan qabanayno ay maniyadu inoo timaado adduunyadan aan ka guurno insha Allah tacaala aakhiro inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina soo saaro isagoo raalli inaga waxaan umahadinaya runtii walaalaha ikhlaas ilaahay khayr siiyo u istaagay inay ummadda u khidmeeyaan ummadda in loo khidmeeyana wax fudud ma aha waa wax culus waqti bay kaaga baahan tahay xoog bay kaaga baahan tahay kharash bay kaaga baahan tahay xil dhan ayaad qaaday ummaddan ayaad rabtaa inaad wax ka bedesho marka runtii ikhlaas foundation ilaahay ha barakeeyo waxaa markhaati ka ah inaan caawa halkan isla fadhino ay eventkan iyagu sabab u yihiin oo labadan barakaysan ee wiil ee dhalinyarada ah ee aan rajaynayo culimo waaweyn insha allahu tacaala oo fatwada iyo maaragtay loo soo doonto sida maanta sheekh cusmaan doctor cusmaan oo kale loogu raadsado inuu ilaahay ka dhigo insha allah idin barakeeyo adeer aad ayaan idinku faraxsannahay ummaddana waad ka farxiseen ilaahay idinka farxiyo idinkana doctor cusmaan baa kolley annagana soo qaaday ilaahay khayra siiyo sheekh barakaysan oo taqaaniin ilaahay ha xafido isagana dabcan magaaladuna la degan yahay Birmingham waxyaabaha waan sheegi doonaaye qoysaska marka laga hadlayo sheekhu dabcan qoysaska uu ka hadla laftigiisu maalmaha kamid oo aroos joognay ayuu yidhi reerku wuu guuray sheekh cusmaan soo tasmaay جزاك الله خيرا يعني guurku fasirayay marka ninka dhalinyarada ah Cabdirashiid Ustaad Cabdirashiid khayr Allah siiyo caawa la ii sheegay waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin insha Allah taala information ka weynii wado information crucial ah oo aad muhiim u wada insha Allah taala haddaan u soo laamo marka waxaan codsan lahaa in إيتام ما قشين تكورس هابي مارج أكاديمي ما قشين يا مقلب القاعة ثالث تاجو غير لندن أنت عاوة صوت هول تمدي حان هل كان كفيرني إني يقانني ينكر إن شاء الله قارب بدن بيقان إلهي هذه بركاته وهي أدرنتي أنا قلت لك قال لي إن أن دتكين أن كبر رجنو قيمة أولي هي جورك يقيسكو caawa halkan idima hor fadhiyeen haddayna hibi jiri lahayn ma soo gudbin kareen waxa aan soo gudbinayo haddayna hibo aynan garabkayga midig aynan ahaan lahayn waa la garsamaha mashruucaasaan marka meelo badan aan gaadhsiinay ma aha sida dadka qaarkood ay u sheegeen oo jacayl innaga dhaqankeena markaad eegto jacayl marka la sheego waxaad moodaa xoogaa wax iska yaraa sidaa qiimo badan aan u siinay laakiin suugaanta ku noqo suugaanteena markaad fiiriso waxaad arki dadka Soomaalida in ay yihiin dad aad u yaqaana jacaylku waxa uu ka dhigan yahay marka waxaan rabaa maadaama oo jalsad diini aan isugu imaanay in aad dib u siyaaratiin quraanka dib u booqatiin sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam quraanka kelmadda al-hub waxay ku soo aroortay ka badan 80 jeer quraanka ayadoo noocyo kala duwan leh waa leela fahmi sama جزاكم الله خيرا qodobka ku xiga astaamaha qoyska guuleystay ayaan rabaa marka in aan wax isla fiirino insha Allah taala waxaan rabaa inaan siyar dul taagno marka astaan waa calaamad sama waa waxa lagu garan karo qofkani in uu waxa leeyahay laakiin meeshaan rabaa inaan dul taago wax weeyaan guuleystay marka maxaan ka wadnaa guuleystay xagee lagu guuleystaa
كلمة قوليستي لاتيني هو success سما وقول يعني أما victory طبعا victory وننعى بطلك يدقالك يمارتي قبص الشدي وحين كان لكن الهان إن قفكوا نلاشوا وكو قوليستو success كان الله استعمالها success marka su'aashan isweydiinayo dadkeena fadhiya inaan guulaysano ma rabnaa ya yaa raba in uu nolol macaan oo ku guulaystay uu ku noolaado hay dadka qaar ma rabaan miya gacan waxaan filayaa gacantu inay cirka wada aadayso maxaa dhahay baaraka allah fiikum waan wada rabnaa inaan guulaysano soo maaha insha allah ilaahayna guuleeyo لكن waxaan rabaa in aan maaragtay guushaas aan laba dhinac inaan u fiirino adduun iyo aakhiro inaga muslimiin markaan nahay waxaan aaminsanahay labadu in ay isku xidhan yihiin waxaan aaminsanahay labadu inay isku xidhan yihiin bal aakhiro ay qiimo badan tahay maxaa markhaati ku ah quraankan ziyaaranayna ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati qasas wadarkiisii maalmaha halkaa inay ku qoran tahay وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة محل هرمري آخرة الهرمري معنى هذا وهمك وغسرية هي ultimate goal وإنه النقضة إلهي إنه رالينا غنو إلهي إنه فرحه أنا قويس كي يقولي كجرة ما كدقي كراسداس ما نقول كرا قفك إلهي جعلي هاي أوكي waxaan aaminsanahay inaan noqon karo aayad inta kuma eka maxaa lagu xijisiiyay maxaa la yiri adduunya ma ku noolay soo ma hadee wala tansa nasiibaka okay qolan idin sheegi qolada adduunka aadka u jecel aayadda inta horena way ka rifaan inta dambana way ka rifaan war waxa la yiri wala tansa nasiibaka min adduunya maxaa ka sheeganaysa sheekh baasha alaabtan ururna u kaadi okay inta dambe maxaa ku xigta marka wala tansa nasiibaka min adduunya الدنيا ده وحبها كجت بالي سما أنت تقول يا ضحية كقاعدة لكن محا كوسي جرا كوسي حاجة وأحسن كما أحسن الله إليك إلا يزدل تعانوا بحنا مركب وناجي سدوا إلهي كو وناجي هذه حداد مركب صاقش جوريجا دجالات كو صاقشوا قلبي جوريجا كو سوي ودمانا يا وقت كبعدي haddaad adiga guriga marka lagu soo galana dagaal ka horgeyso qalbigan ku soo noqonayay soo socday ee ka soo fikirayay waa dilaysaa su'aasha isweydiinta marka waxa weeyaan labadan qalbi sidee isugu soo dhawaan karaan koorsooyinkan ku dhignaa runtii sideed u hanan kartaa qalbiga lamaanahaaga maxaa yeelay qofkan lamaanaha ku noqday wuxuu ka saaray singalnimadii qalbigaani marka muxuu ka dhigay uu ku badiyay labu ka dhigay cilladii buu ka saaray laakiin ka waran quluub badani haday dilan yihiin already iyagoo guriga ku dhex jira hadii niyada laga jabiyo qalbiga ay dilaacay ma aad maqasho sama marka runtii arintaasi waa arin u baahan in lala dhaqmo tamam waxaan ku dari lahaa Axmedow in qofka bini aadanka waxa la yiri markuu labada qof ay isla nool markuu kula hadlo qof oo xaaskaagu ay kula hadasho amba ninkaagu kula hadlo qalbigaaga daaqad yar baa isfuraysa meel yar ayaa furmaysa meesha yar wixii aad jawaabtaada ku daboolaysa oo ku xiraysa waa ajiib sooma qalbigii qofka ayaa wax walba ku yiraahdo waxaad ku xiraysaa oo ku daboolaysa wixii aad ku jawaabtid balse waxa ka sii horeeya oo runtii aan baranaa in uu qofku markuu qof la hadlayo isaga samaysanaya jawaabtiisa ogow markaan anigu kula hadlo haddaan qaab wanaagsan kuula dhaqmo haddaan ku dhoola cadeeyo qaabka aan la yimaado waxaan samaystay jawaabtaydii anaa samaystay ya marka waxa weeyaan inaan ogaano wax kasta inaan iska niraano oo saan doono u dhaqano qofkuna uu na wanaajiyo ma dhici karayso adaa waxaan ula yimiday qofka adaa ula yimiday waxaan dagaal meeshaas hadduu ka dhaco isweydii sabab baad ku leedahay weligaaba isdiidsii laakiin sabab baad ku leedahay marka waxaa la rabaa qalbiga qofka ee furmaaya meeshaas waxa aan ku xirayno inaan ka fiirsano walaalayaal aan u fiirsano ayaa la rabaa ta kale qalbigu waa maqarkii taqwadu meesha ay degayso weeyaan wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa billahi yiri jannada ayaa khalaas wax kale oo qofka lagu abaalinayo ma jirto
marka runtii waqtigu uu nagu yar yahay xoogaa wax yar baan noo sheegay inay harsan yihiin labada qof waxa weeyaan walaalayaal waa sanaaca ilaahay waa aayado wa min aayaatihi sooma lama odhan labada qof aayad ilaahay weeyaan maadaamay isku imaadkoogu iyo wada noolaasho aayad ilaahay ay tahay meeshii wax ay ka soo baxayeen oo mujtamacu ka noolaanayeen ay tahay in aan aad u daryeelno reeraha qofku intuuna guursanna bal inuu wax barto oo jinsigan ka duwan sidee loola dhaqmaa inuu barto ayaa la rabaa waxaan axmed uga soo sheekeynayay sheekh cusmaan markaan waddada kusoo jirnay ninbaa waxaa la yidhi reerkoogu 3 wiil bay ka koobnaayeen 3dan wiilow dagaal mooyaane wax kale ma yaqaanaan maanta ka dhan waa la isdilaa hooyadii aabbuhu shaqadooda maaha wiilashii naftay iska qabteen marka mid ka mida wuxuu yidhi markaan da'dii shukaansiga gaadhay ayaan gabadhaan bartay inaan cunfi iyo dagaal iyo warzone baan ku jire maba garanayaba dabacsanaan iyo naxariis iyo ruuxdan dumarka see loola dhaqmaayo waxaasiba iima furnuu yidhi markaan waxaan rabaa buu yidhi waa nin caddaana waxaan sheekada ka sheekeynaya li'anna dadkaasi annakoo kale maaha waxaan ka wadaa dhinacii xishoodka iyo labada qof gabadhii buu yidhi mar alla markaan u yimaado waxaan jeclahay buu inaan gacanteeda saa yar u qabsado baan doonaa buu yidhi waa qof bilaadana moogta laakiin maan baran buu yidhi dabacsanaan iyo naxariisba iguma jirto mar alla markaan gacanteeda gabadhii saa u qabto waxaan bilaabaa buu yidhi faraheyga inaan saa u jijiido oon saa u jajabiyo shaqan baaba ka dhigtaa buu yidhi gacmahan maba hayn karayaba mar alla markay iga dacwooto yidhahdo war gacmihii baad iga dashay biliisi sii daa wuxuu waad ku adadkaanaysaa gabadhay waad ku adadkaanaysaa sidan waxaa lagu noqdaa taf baa lagu noqdaa nacam waxaan kusii wadaan buu yidhi violencekii aan la imiday unbaan ku wadaa haddaan u badan oo naxariista ugu weyn muujiyo oon jacaylkayga u muujiyo waxaan idhahdaa buu yidhi maasha allah dhabarka ayaan saa uga tumaa buu yidhi laa ilaah nacam way dhimatuu yidhi qoftaasi wayba dhimatuu yidhi sidaan u galay ma garatay marka waxaa la rabaa in horta waalidku ay ka digtoonaadaan ilmaha iyagaa soo saaraya dembi waxaa kuugu filan baa la yidhi inaad mujtamaca kusoo dartid qof khariban ajarna waxaa kuugu filan iyo wanaag inaad qof dhisan oo diyaarsan aad mujtamaca kusoo dartid marka wiilashana in naxariista iyo gabdhaha qiimaha ay leeyihiin iyo wanaagga ay leeyihiin in la baro ayaa la rabaa gabdhahana in la baro ixtiraamka iyo qadarinta iyo qawaamada ilaahay ragga siiyey ee lagula xisaabtami doono inay ogaadaan ayaa la rabaa marka maxaa la yidhi oo lagu soo koobay 2 kelmadood keliya gabadhuna maxabo iyo daryeel bay u baahan tahay ninkuna wuxuu u baahan yahay maqal iyo qadarin in la qiimeeyo oo la qadariyo ayaa la rabaa laakiin haweeneydu hubka ugu weyn ay haysato waa carabkeega waa 2 bishimood waxa ku jira maxay samaynaysaa hubkaas ayay kugu dilaysaa walaalayaal waxaan rabaa in aanoo dadejinay aan ku soo koobo leena wax badan baan rabaa inaan sheego laakiin waqtigiina uu kooban yahay in gabadha iyo wiilka aan u fiirsano abuuritaankeenii hore bal inaan u fiirsano ilaahay markuu nebi aadam abuuray nebi aadam uu cidlooday xaawa loo abuuray soo maaha culimadiina waa joogaan xaawo way weheshatay laakiin nebi aadam isaga ciid baa laga abuuray arladii baa laga abuuray isaga ya marka laakiin xaawo xagee laga keenay xaawo maxaa laga soo dhambalay nebi aadam baa laga soo jeexay soo maaha nebi aadam baa laga soo geysoo qof jira ayay ka timid iyadu marka maxaa la yidhi ninku wuxuu wataa sifooyinkii turaabka ciidu sifada ay leedahay ayuu wataa ninku oo ah jaafnimadii adadaygii inuuna si fudud iskugu kaa dhiibin inuu maaragtay waqti qaato in shaqo badan uu baahan yahay in waqti la geliyo juhdi la geliyo in gabadhu dabacsanaan fara badan iyo hadal fara badan iyo dhiirin iyo maxabo ay tusto siduu ninku soft u noqdo u dabco gabadhii laakiin ilaahay bil aadan buu ka keeno ayadu kolka hore bay iska dabacsan tahayba laakiin meesha laga abuuray umuna xaawa qalbiga feedha qalbiga nebi aadam kor saaran ayuu ilaahay ka abuuray xaawa marka maxaa la yidhi xaawa waxay dili kartaa amba noolayn kartaa meesha ay ka timid oo ah qalbigii eeg feedhii kor saareed ta hoose lagama abuurin ta kore lagama abuurin tii ku baagnayd oo qofka haddii la rabo in laga dilo uu ka dhiman karo ayaa xaawaa laga abuuray marka xaawa shaqadeedu maxay noqonaysaa oo dumar oo dhan aanoo ka wada inay ilaaliso qalbiga ninkeyga inay ilaaliso inay noolayso meeshaasayna dili kartaa meeshaas ayayna noolayn kartaa ninka bini'aadanka haddii la rabo si fudud in lagu gaadhana haweenadiisa un haddii loo maraa ugu fudud soo ma meel dheerba iyadoo laga yimid waxa ugu horeeya ee khaarijin kara waa haweenadiisa marka waxa weeyaan walaalayaal inaan qalbiga aad u ilaalino oon ka fiirsano ahmiyadda uu leeyahay axmed aad baa mahadsantahay jazaak allahu khayran aad baad mahadsantihiin baarak allah fiikum